waxaan salaamayaa waftiga inooga yimid Hargeysa oo hormuudka u yahay gudoomiye ku-xigeenka koobaad Axmed Yaasiin Shacala ayaan leh wasiirka warfaafinta Saleebaan Yuusuf Cali Koore wasiirka jidadka iyo horumarinta wadooyinka Cabdullaahi Abubakar Cismaan gudoomiyaha gobolka maayirka degmada Uqaasha dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay xuskan qiimaha badan ee 26 Juun runtii anagu waan ka yaray 26 Juun markii xornimada la qaatay odayaashii naga waaweynaa baa jooga laakiin se waa maalin qiimo badan oo qarankeena iyo Soomaaliland baa qiimo badan innaga oo xornimo haysan ayaan walaalaheena koonfureed u hilownay oo shuruud la'aan ugu tagnay maantana ilaahay mahdi waxa shuruud la'aan baan kaga soo noqonay qarankeena Soomaaliland baan xajisanaynaa ubadkeena yaryar iyo taariikhdeena waxaan ku dhigaynaa 26 Juun dadkii ugu horeeyay ee British Somaliland aan ahayn ee xornimada helay innaga Italiya Somaliland u tagnay maantana waan kala goosanay insha Allah ta'ala dibna isku noqon mayno xornimadeena iyo aqoonsigeena sugaynaa insha Allah ta'ala aqoonsigo Somaliland waxay u taagan tahay aqoonsi hadii ay wada ilaa Taiwan bay haanaysaa cidna uma daba fadhiisanayna goor isku taageena caawana waxaan xusaynaa 26 Juun oo xaflad aad iyo aad u qiimo badan ah waa ilaahay mahadi nabadgelyo ku naaloonaynaa nabadgelyadana wax ka qiimo badan ma jiro mas'uuliyiinteena iyo madaxdeena waxay nagula dardaarmayaan inaan Soomaaliland qarannimadeena nabadgelyadeena walaaltinimadeena inta baan xajisano haddii kale oo inagu isa juqayno ma helayno qarannimadeena socon mayso laakiin se waxa weeyaan qofka yar iyo ka weyn iyo ka mii joogay ka magaalo joogay waa inuu gooni isku taaga Soomaaliland ku turqanaado warso islaamaha Soomaaliland ha noolaato ha jirto ha joogto madaxweynaheenu ha noolaado wassalaamu calaykum